maamulka degmada Doolwa ee gobolka Gado ayaa dhul banaan ku wareejiyay hay'adda cunnada adduunka ee WFP waxaana la filayaa in hay'adda halkaasi ay ka sameysato saldhig ama xarun si ay u gargaaraan Ilaahay baa wax gargaaray dadka ku nool degmada Doolwa iyo nawaaxigeeda oo ay saameeyeen abaaruhu. Maxamed Macalaadan ayaa warbixinta inooga soo diray halkaasi. gudoomiyaha degmada Doolwa Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan hay'adda cuntada adduunka ee marka magaceeda la soo gaabsho loo yaqaano WFP ayaa maanta kormeeray dhismo cusub oo ay hay'adda WFP ka samaysanayso duleedka degmada Doolwa Soomaaliya. intii lagu guda jiray kormeerkan ayaa gudoomiyaha waxa uu dhul cusub ku wareejiyay hay'adda WFP dhulkaasina cabirkiisu waxa uu dhan yahay 30 mitir oo iskuweer ah. gudoomiyaha degmada Doolwa Soomaaliya Aadan Barre Cali ayaa TV-ga Jubbaland uga warbixiyay dhulka ay maanta ku wareejiyeen hay'adda WFP. halkaan waqam ay leedahay WFP oo qaabilsan koonfurta Soomaaliya ka rabto dhul baan siinay waagi hore anagoo badan gudoomiyaha degmada ka ah Cabdishiid Xasan Cabdinuur dhulkii ku filan way waxaan ugu darnay ilaa 30 iyo samti mitir oo ay dib silib ugu wareejinayso si ay difaac ugu dhigato oo mataqaanay dadweynaha iyo xoolaha iyo ay ugu difaacdo سيادتي بانوسين لوكاس كام كان وكام كدولي في كوفة الصومالية أي وطلب شيء سبيسي ولا مرة ما نو سعدا وصل ما اشتد دراسة شيء وصل ما اشتد من دراسة شيئين إلى بش أفراد السنة توصل لحد تونكا ساكي ساسي نوية لكل مرهم هو معني أنا واحد قدومي دقمة دور الصومالية فيس كوركيلو هاي تدوين أسكار هاي كنا وكام إذا يدستي قرش بنا نقول بحي كام بستة مركا كلا يكون جسور كذا ولا قويسي ونسوي قلت كام كذي تسوري جد واساس لكن أنا باقي عيد الدون كدولي في عنتدا إن لقف هذا أمام كيس الله سوى عيدا بيجوي دونه ودفاع ونقول دونه وواردي ونقول دونه يدوينها اسمها فعيان سادتين إن لقف هذا لك كلا وبديها لك الدولة ولا الدجال لكن أجل لك فوق أنت تقول محمد معلن جبلان TV دولة الصومالية.